munaasabadan lagu daahfurayay xarunta rasmiga ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa lagu qabtay dhismaha cusub ee wasaaradda oo laga hirgeliyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaana ka soo qayb galay furitaanka xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Al Xasan wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug waxaana xaflad kooban oo lagu qabtay gudaha wasaaradda ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Galmudug go'rayntii goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamaanka Galmudug xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo munaasabada ka hadlay waxaan runtii maadaama aan nahay wasaaradda bahwadaag runtii insha Allah tacaala kaalinta noogu aadan ilaalinta dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ayaan xil iska saari doonaa asagana noogu xil saaran wixii ilaalin iyo isla xisaabtan hadii la yiraahdo doorkeena ka geyso doona hadii la yiraahdo mar raba inaan ku sii dheeraado dastuurku runtii waa heshiis bulsho maadaama ay bulshadu ay ku heshiisay macnaha iyadu habraaceeda iyo mustaqbalkeeda iyo waxyaabaha runtii ay ku midoobi karaan bulshadaas yacni qof kasta oo muwaadin Galmudug ah waxa looga baahan yahay inuu ilaaliyo dastuurkaas Duraan Maxamed Samatar wasiirka arrimaha gudaha Galmudug ayaa madasha ka sheegay in dhibaatada Galmudug ka jirtay qayb ka tahay in beesha caalamka ay xog badan ka haynin dastuurka Galmudug loona baahan yahay dastuurka si adag looga shaqeeyo si loo baahin lahaa meeshan hadda Galmudug taalo waxa u maleynayaa ciriiri badan iyo dib badan waxa soo gaarsiiyay dastuurka iyaga oo caalamku aad u aqoonin markasta oo aan damacno inaan hadalno waxaan rabaa inaan ku darno ummadda Soomaaliyeed aanu sheegno xukuumadda iyo dawladda Soomaaliyeed aanu sheegno in dastuur ay leedahay Galmudug waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo xukuumaddeeda iyo madaxdeeduba ay akhriyaan qofkii aan heli karin wuxuu ku jira Google-ka dastuurka cusub ee Galmudug baa la yiraahdaa wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sharaxaad guud ka bixiyay marxaladii kala duwan oo soo maray qorshaha lagu furayo xaruntan wasaaradda ee laga hirgeliyay magaalada Dhuusamareeb maanta waxa la asaasay oo salka loo dhigay wasaaradda dastuurka taa macnaheedu ah inay tahay iyada kaliya qofka ku hadli karto magaca dastuurka hadii la yiraahdo cidii kale oo ku hadasha waan ka cafin doonaa insha Allah tacaala marka madaxda sharafta leh waxaan isleeyahay maanta su'aali kama fura dastuurka Galmudug maanta ay ku shaqeynayso haddii ay jiraan waxyaalo laga cabanayo oo tusaalaha reer Galmudug ay dareemayaan inay wax uun ka cabanayaan inay wasaaradda la soo xiriiraan wasaaraduna wixii ka garawdo wixii ii sheeg loo arko inay tahay dhib kadib baarlamaanka noo joogo la wadaago iyo madaxda naga sareysa sidaasna aan waxna ku xalisano laakiin waxaan isleeyahay waxbaan tabanayaa banaankan ka hadlayaa sax ma aragtaanteeda in miiska la isugu yimaado la hadlo wixii annaga oo isku calulfayo aan hawshan dastuurkeena waxayna aan wada ilaashano ugu dambeyntii madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Al Xasan ayaa ku adkeeyay in wasaaraddu ay ka soo baxdo waajibaadka saaran loona baahan yahay inay si weyn uga shaqeyso sidii loo soo horumar lahaa howlaha dastuurka Galmudug iyo arrimaha ku xiran waana inaan maanta xafladan kala soo qayb galna aadan ugu faraxsanahay dastuurku runtii iyo wasaaradda maamulka u matalaysa oo loo igmaday waxay ilaalinaysaa shacabka ayay ilaalinaysaa waxayna ku ilaalinaysaa ballankooda ay dhaqorteen inta canaabtu saarantaana inaan isugu tagno oo xafiisyo wasaaraddu ay yeeshaan waa laga yaabaa inay noqdaan gobolkood guryo kira aan kireysano laakiin waxaan gaari doonaa biidnillaahi alkariim wasiir walba inuu ku shaqeeyo wasaaraddu dhul iyo dhismo ay iska leedahay qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa kadib markii maamulku uu soo guuray xaruntooda waxaa lagu wareejiyay xarumo cusub oo dhismayaal lagu sameeyay Abdimaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb